munaasabadani oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble, madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaawe Xuseen, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo ku-xigeenadiisa, mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle, siyaasiyiin, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, fanaaniin, barbaarta gaashaaman iyo xubno kale. iyadoona munaasabadani ay isugu jirtay sagootin iyo soo dhaweyn loo sameeyay xildhibaanada aqalka sare ee dhawaan lagu doortay caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. Senator Fartuun Cabdiqaadir Karaama oo ku hadasha magaca xildhibaanada aqalka sare ayaa ka mahad celisay munaasabada loo qabtay. waan ka soo bixi doonaa xilkaan oo idmateen adinkana idinkama maarno dadkeen iyaa tihiin waxaan rabnaa inaan la garab taagnaataan hiil iyo hooba annagana waxaan haysano towladiinii aad doorateen sida codka kalsoonida aan noo siiseen aada ugu mahadsan tihiin. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa asna la dardaarmay xildhibaanada aqalka sare. sanatarada aqalka sare ee matalaya ummadda Hirshabelle iyagana waxaan rabaa inaan idhaahdo aada uga sii badan tihiin idinkuna sida laydiin doortay u dadaala oo markaa tagtiin goobaha aad ku matalaysiin wixii ay qabsadeen sheega waxa in loo qabtay u baahan yihiin sheega hadii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa asna mudanayaasha aqalka sare ee Hirshabelle kula dardaarmay inay wax u qabtaan reer Hirshabelle. mar ugu dabaaldegayno marna weliba kula dardaarmayno maxuu ahaa senatarada Hirshabelle ee la doortay aan rajaynayno in insha Allah tacaala 4 sano ay soo socota nagu matalaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana xagga uu statekan leeyahay u istaagaan horumarintiisa wax u qabadkiisa toosintiisa iyo weliba midda qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble iyo xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta u ambabaxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.